هي وحسر عنو نغما سيدو ما سر بعد نغا ودا نغما سيدو markay qof run u sheegay iska dhigtay ay labadoodii ka soo noqdeen baa leeyahay kolka in yar soo noqdeen Ali baa yiri oo ma warkeegan rumaysanayo warkii nabigan beeninay buu nabi maxamed baa nagu yiri sir aan leenahay ayay gabadhaasi quraysh mushrikiinta u wada ee sirta ka soo qaada maadaama nabi maxamed uu yiri ma warkeegii intaan rumaynay ayaan warkii nabigana been ka soo qaadnaa buu yiri sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono Ali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yiri sirta aad naga wadid nabi maxamed baa ku sheegay haddaad sirta halkaas soo dhigi weydid gacmahayga kuulay ma buukay markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nabi maxamed uu soo sheegay boqolkiiba boqol ay u rumaysan yihiin ayay tiri iikaadiya haddaba intay sii jeesatay marad timihii intay furtay timaheegii tadcana ayaa warqadii taale ka soo saartay warqadii bay nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam ya rasuul allah ta gabadha sirtay waday warqada ninkii qoray masaajidka nabigu dhex fadhiya xalaqadu dhageysanaya waa la furay waa la akhriyay risaaladani waxay ka socotaa Xaatib ibn Abi Balta'a waxay ku socotaa Quraysh bay ku socotaa waxa ka waramay marka uu Quraysh uga waramaya sirtii nabi maxamed sirtii ciidanka dawladda islaamka sirteedii buu gudbiyay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midabkiisa badilmay rasuulka halkan Umar baa joogo markiiba kacoo yiri ya rasuul allah nikan munaafiqay nagu jira ee sirteeni gaalada u sheegayay ana qoorta ka goynay ugu fasax buu kay markaa uu nabigu Umar u kaadi degdegin ya Xaatib labbayk ya rasuul allah saasu leey labbayk ya rasuul allah saraka bukay ustaad sirteena inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal sheeg bukay wuxuu ya rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu raga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii Makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa Maka u difaacay ubadkiisii reerkiisii iyo hantidii Maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada Maka dagaankayga ma aha ubadkayga reerkayga baa Quraysh kaga dhaximiday hadii waxaan isiri hadaad inta yaro sir ah aad gaalada u sheegto Qurayshta waxay is oranayaan Xaatib inniku inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaas baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo in nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama munaafiqnimana igama bal waxaan ahay muumin baan ahay nabi allah sirtaada sababta u sheegayna taasu bay ugu kaliftay bas in reerkayga la ii nabadgeliyo oo Quraysh ugu xisaabtamaan yiraahdaan ninkaasi anagu meesha noo joogay reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysan ha ka dhibina markaa buu nabigu aamusay sallallahu alayhi wasallam laakiin dambi weyn buu galay sirtii dawladda islaamku gaalada u gudbiyay markaas nabigu aamusay isla markii nabigu halkii fadhiya ayaa fi surati al-awail surati al-mumtahin ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah ila akhir al-ayah suurada awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku cadeeyay inuu ninkani Xaatib uu kamid yahay duulka muuminiinta ilaahay nabiga rumaysan inuu kamid yahay buu ilaahay cadeeyay iimaankiisa baa ilaahay cadeeyay iimaan baa loo marxaati furay inuu muumin yahay markaas looga digo la yiri ka isagoo kaliya ma hine bal muuminiinta oo dhan waxa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogi iyo cadowgi ilaahay cadowgi rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiibo ka dhigan maanta laga bilaabo markaa buu nabigu Umar buu eegay ya Umar Xaatib waa ka soo quraanki baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyay oo quraanki baa cadeeyay iimaankiisa dambiga uu galayna inuu dib dambe ugu noqona waa looga digay laakiin Umar waxaad ogeyn ahl al-badr buu ahaa ninkan waa reer badr waa 313 kiinan ee dagaalka badriga la qayb gashay weeyaan ahl al-badr nama taqaana darajadooda waxa la yiri ya ahl badr ifcalu ma shi'tum faqad ghafara lakum ya ahl badr
waxaad doontaanba sameeya iniga dembigiinni waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka badriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su'ul khaatima ku dhimani maaye xusnul khaatima iyo ku dhiman doona marka u dambaysa laana maalintaasaa ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yarayd ee gaaladuna ay soo duuleen iyagoona dagaal ku talagelin ayuu nebigu u saaray macrakatu beder inay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda bay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi asalaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albeder fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka beder kaala qayb galay agtiinna qiimahay ka leeyihiin bal ii sheeg oo halkeed maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu uhi min afdali almu'miniin mu'miniinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badran min almalaa'ikati sidaasoo kale annaguna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka beder soo dhaadhacdee nagala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan taqdiir wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ay maa carafuuhu xaqa macrifatihi wamaa cadamuuhu xaqa cadamatihi qadarkii ilaahay uu lahaa maanu garan maanta qadarkii nebigeennu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam maanu garan laakiin raggaasaa gartay qadarkii rasuulkeena